dhacdo dad badan la yaab iyo argagax ku beertay ayaana ka dhacday isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho kadib markii gudaha isbitaalka lagu dhaxaday wiil yar oo dhalanaa 2 maalin oo kaliya cunugan yar ee la xaday ayaana isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee SOS lagu dhalay Khamiistii la soo dhaafay waxaana cunugan yar la sheegay in la xaday xilli hooyadii dhashay oo xanuun hayay ay huruday aabaha dhalay cunugan yar oo lagu magacaabo Mustafa ayaana sheegay in wiilkiisa curadka ahi lagu xaday gudaha isbitaalka SOS waxa uu na sheegay aabaha xilli uu isku diyaarinayay in casho uu u geeyo xaaskiisa loo soo sheegay in cunugoodii yara la xaday aaba Mustafa ayaa sheegay in si degdeg ah uu soo gaaray isbitaalka SOS waxa uu na xusay in meel kasta uu ka raadiyay cunugiisa yar balse uu ku guul dareystay in uu helo waxa uu na cadeeyay in booliska uu ku wargeliyo falkan lagu xaday cunugooda yar aaba Mustafa oo ka hadlay ayaa yiri markii aan xaafada tagay oo cashada aan soo qaadi rabay ayaa la ii soo wacay waxaana la ii sheegay wiilkii in la qaatay waana soo cararay isbitaalka ayaan imid wax ku fiirinay iyo wax ku jawaabayo malahan meelaha qaarne in aad gasho lama ogolo qolka dad badan ayaa joogay laakiin gabar yar ayaa qolka dhex joogtay oo agteena joogtay dadka waxa ay u maleynayeen in ay annaga nala joogtay wax rajo ah malihi waana qadar alle balse waxaan la yaabay dayaca isbitaalka ka jiro ee ilmo yar irida looga baxayo waana cunugii iigu horeeyay ayuu yiri aaba Mustafa dhacdadan cunuga yar lagu xaday ayaana noqotay mid dad badani dareen cabsi ah ku abuurtay mana jirto ilaa ay hadda wax war ah oo ay maamulka isbitaalka SOS ka soo saareen cunuga yar ee lagu xaday gudaha isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho